ciidamada ammaanka ayaa aroornimadii hore ee saakay si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud kadib markii ay isaga baxeen goobihii ay joogeen xalay waqti dambe maleeshiyaadka hubeysan ee Ahl Sunna oo qayb ka mid ah muddadii uu dagaalku socday ay koox isugu dhiibeen ciidamada dawladda. La wareegitaanka ciidanka ammaanka ee Guriceel ayaa yimid kadib markii kooxda Ahl Sunna ee Guriceel dagaal adag ay la galeen ciidamada ammaanka kaasi oo qasbayn ugu dambeyn uu yimaado wada hadal saacado badan qaatay oo ay ku lug lahaayeen mas'uuliyiin iyo ganacsato deegaanka ah oo qayb ahaan hubkii ku soo wareejiyay dawladda iyagoo dhufeysida ka saaray dhalinyaradii laga soo ururiyay miyiga ee furimaha ku jiray. xaaladda magaalada ayaa haatan ah mid degan waxaana lagu dhex arkayaa dad aan badnayn kuwaasi oo xaaladda qiimeynaya maadaama dagaal qaatay muddo 4 maalmood ah oo ka dhacay magaalada kaasi oo khasaare xoog la geystay isla markaana wadooyinka magaalada ay wali yaalaan meedad aan la aasin. Cusmaan Cali Huday taliyaha booliiska Guriceel oo ugu horeyn ka hadlay howlgalkan ayaa baaq u diray dad uu sheegay in ay boobeen agabkii saldhigga yaalay ee loogu adeegayay dadweynaha. ummadda islaamka oo dhan sunnada jamaaca ah marka shakhsi wuxuu leeyahay ma ahan waa wax aan maaragtay magac tan qaas laga leeyahay oo tan gaar lagu gaaray oo hadana tan shakhsiyeed lagu fushanayo waay mana aqbali doono insha Allah mar walbana waa u taaganahay inaan dadka noocaas ah aan iska difaacno ummadana aan ka badbaadino. xafiiska dawladda cid walba oo gudihiisa soo kashay xilligii nimankan maaragtay ay joogeen iyo ama ay ka baxeen oo shacab ahay oo alaaba ka qaatay iyadana waxaan rajaynaynaa hadii alla idmo in aan la xisaabtami doono wixii dawladdu lahayd ninka qaadana waxa asagu jeebkiisa oo maaragtay oo jeebkiisa ay ka go'an waaye marka si sharciyana waa la xisaabtami doonaa. waa jirta xafiiska in waxyaabo badan laga qaaday laakiin waxaan rajaynaynaa hadii alla idmo inaan cid kasto oo hawsha sameeydo waxaan naga la shaqeynayaa shacabka macluumaad badanna waan ka haynaa iyagana insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan la xisaabtano. maamulka iyo saraakiisha ciidanka hogaaminaysay ayaa kormeeray goobaha la isku horfadhiyay sida aaga jaamacadda waxaana gudaha xaruntaasi warbaahinta qaranka kula hadlay gudoomiyaha Guriceel Anas Cabdi Macalin oo ku dhawaaqay in la soo afjaray howlgalkii socday ayna ku baaqayaan dadka shacabka ah inay dib ugu soo laabtaan guryahooda. dhammaan bulshada reer Guriceel waxaan rabaa halkaan maanta inaan uga baaqno dadkii ka barakacay magaaladan oo banaanka iyo qorraxda iyo ciradda joogay inay ku soo laabtaan guryahoodii in muxuu ahaay ay magaaladii tahay hadda xaaladeedu mid degan in ay gacanta amniga magaalada ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka ee dawladda galmudug ayna tahay amnigu uu yahay mid sugan. waxaan rabaa marka inaan bulshadii la barakacshay ee guryahooda dhufeysida laga qotay ee la dhibaateeyay inaan ugu baaqno inay guryahooda dib ugu soo laabtaan. taas waxaan rabnaa inaan gaarsiino fariintaas bulshada reer Guriceel. waxaan kaloo rabaa inaan halkan fariin uga diro dhammaan hay'adaha ka howlgala degmadan Guriceel iyo dhammaan galmudug inay caawiyaan dadka muddada 20 dhowrka bari ah ku dhibaateysnaay banaanka dhaxanta iyo roobka hooy la'aanta cunto la'aanta ay dhibaatadu ku haysatay in si degdeg ah ay uga jawaabaan inaysan jirin cudurdaar ah wada xiran ma jirto annaga ayaa u dabaanad qaadayna amnigooda iyo wadooyinka iyo meeshii ay mar lahayn inaan u fududeyna hadii Ilaahay yiraahdo. marka waxaan rabnaa in sidii madaxweynuhu ugu baaqay in lala gaaro dadkaas caawinaad degdeg ah in laga jawaabo baahiyaha taagan. runtii dadku waa barakaceen waxa laga yaabaa inaysan awoodin dad badan oo kamid ah inay guryahoodii ku soo laabtaan marka in dadkaas la caawiyo waxaan rabnaa inaan si degdeg ugu baaqno. xaaladuna hadda waa mid degan magaalada amnigeeda iyo muxuu ahaay isku socodkeedana waa uu furan yahay. ciidamada amniga waxaan ka codsanaynaa inay si dhow ula shaqeeyaan bulshada bacdama bulshadu ay tahay mid aad u dhibanna in loo fududeeyo isku socodka haday tahay gaadiidka iyo dadka lugeynayaba inaan dadka la celin muxuu ahaay loona fududeeyo inay guryahooda dib ugu soo laabtaan. aadan ugu mahad celinaa mar kale ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan sida wanaagsan ee kartida iyo adkaysiga leh ay ugu dul qaateen inay magaaladan gacanta dawladda ay dib ugu soo noqoto. waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga mahad celiyo bulshada reer Guriceel oo garab taagneed muddadii oo howlgal ku socday. aadaanan u mahadsantihiin mar kale reer Guriceel haddaad tihiin dadka magaalada iyo haddii yihiin dadka miyiga deganba sida wanaagsan ay u garab siinaayeen muxuu ahaay ciidamada qalabka sida. waxaan rabaa mar kaleeto inaan ku celino in la garab istaago bulshada hadday tahay dawladda guddigii oo madaxweynuhu u xil saaray waxaan rajaynayaa inay soo gaaraan
oo ay ka shaqeeyaan caawintii iyo sidii ay muxuu ahay bulshada loo garab sii lahay. Cabdullaahi Warsamo Roble, warbaahinta qaranka, Guriceel.